السلام عليكم كنت وعنا ونكسن كسو دوادا أصحابي هالكا كلا سعودان وأوغالك عيارها فضلا سبسكرايب لايكسات أنا هالكا هيدين كسو شيغو طبانك عيارتوي oo xiligan oo kale markuu suuqa xirmi rabay la gatay tobankaas ciyaartooy oo suuq markuu xirmi rabay la tag oo la gatay ayaa rabaa inaan soo sheego xiligan oo kale markuu suuqa saan yahay sanadihii ugu dambeeyay ciyaartooyda la gadanay ayaa rabaa inaan idin soo sheego haddana waxa la filayaa ciyaartooy qaar inay ka dhaqaaqaan suuqan waxaan ugu horeeyay ciyaaryahanka kooxda kubadda cagta Barcelona Eric Aubameyang oo la xiriirinayo Chelsea waxa kale oo ku jira xidigyo badan Yuri Tielemans oo kale Arsenal la xiriirna iyo xidiga badan Frank de Jong oo kale xidiga badan ayaa jira Cristiano Ronaldo kamid ah okay hadda waxaan ku soo gudbinaynaa 10 ciyaartooy oo suuqa xirmi raba lacag ugu badan lagu iibsaday waxa uu horeeyo xidigii hore kooxda kubadda cagta Tottenham Gareth Bale ayaa 2013 ka tagay Tottenham kuna biiray Real Madrid 85 milyan ugu biiray waa xilliga suuqa xirmi rabo waxa kale oo ka tagay 2018 Eric Aubameyang Dortmund ka tagay Arsenal oo ku biiray wuxuuna ku baxay 55 milyan Frank Torres Liverpool ayuu ka tagay 2011 wuxuuna ku biiray Chelsea 50 milyan Thomas Bradley ayaa Atletico Madrid ka tagay 2020 Arsenal oo ku biiray 45 milyan Mesut Ozil ayaa 2013 Real Madrid ka tagay kuna biiray kooxda kubadda cagta Arsenal lacag gaarayso 42.5 milyan Ronaldo Brazil ayaa 2002 Inter Milan ka soo tagay Real Madrid kuna biiray 40.5 milyan sanadka 2015 Antonio Martial ayaa Monaco ka soo tagay Man United ku soo biiray lacag gaarayso 36 milyan Andy Carroll Newcastle ayuu ka soo tagay sanadkii 2011 wuxuuna ku biiray Liverpool 35 milyan Alex Oxlade-Chamberlain ayaa ka tagay 2017 Arsenal kuna biiray Liverpool 35 milyan Daniel Drinkwater ayaa ka tagay 2017 kooxda kubadda cagta Leicester kuna biiray Chelsea 35 milyan intaas waxay ahaayeen ciyaartooyda suuqa xirmi raba la gadanay 10 ciyaartooy suuqa xirmi raba la gadanay marka waxa jira suuqa warar qaar oo la dhaxeynaya jiro wargeyska Daily Mail ayaa soo saaray liiska saxiixda la filayo inay kooxaha Premier League sameeyaan saacadaha soo socdo ee ka dhiman suuqa saacadaha suuqa dhiman ayaa la sheegay kooxaha marka ciyaartooy la qaadi karo Josko Gvardiol Chelsea ayaa u muuqata mid ku sii dhawaanaysa saxiixa daafaca dhexe ee aadka loo qiimeeyo kaasoo sidoo kale soo jiitay indhaha kooxda Manchester City iyo Tottenham kooxda ka dhisan galbeedka London ayaa hadda kale xajoonaysa RB Leipzig heshiiska ku kacaya 75 milyan euro kadib markii ay ku dhawaaqday saxiixa Wesley Fofana haddii RB Leipzig kala heshiiso saxiixa Gvardiol oo xidiga ayaa amaah ku qaadan doona kooxdiisa hadda inta ka dhiman xil ciyaareedka Chelsea ayaa suuqa weli ku jirta waxaa looga shakinayaa inay ku guuleysanayso kistan ka dhiman suuqa Eric Aubameyang Chelsea ayaa si aad ugu baahan weeraryahanka kadib bixitaankii Lukaku iyo Timo Werner waxaa la xiriirinayaa xidiga kooxda Barcelona ee Aubameyang Blues ayaa wada hadal kula jirto kooxda Barcelona waxaan ay doonaysaa in ay saacadaha soo socda saxiixaan xidig kale heshiiska kooxda reer Spain kala heshiyaan kooxda reer Spain isla markaana 33 jirka ku dhigto weeraryahankeeda cusub okay isla wili Chelsea iyo Arsenal Wilfried Zaha ayaa si fiican ku bilowday xilli ciyaareedkan waxaan uu qabaa ciyaareedkiisa dagaal dhexe dhigay kooxda Arsenal iyo Chelsea kuwaas oo ku dagaalamaya saxiixa xidigan oo 29 jir ayaa ku jira sanadkii ugu dambeeyay heshiiskiisa Crystal Palace waxayna kooxaha Arsenal iyo Chelsea isku diyaarinayaan inay u dhaqaaqaan saxiixa xidigan waxaana la filayaa inay dalab ka gudbiyaan saacadaha soo socdo Liverpool Douglas Luiz kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa dhinaceeda aad ugu baahan saxiix xidiga khadka dhexe ee khadka dhexe ah waxaana maalmihii ugu dambeeyay la xiriirinaya xidigo badan waxaana ugu dambeeyay xidiga Aston Villa ee Douglas Luiz Ridis ayaa la sheegay inay xitaa dalab 20 milyan ka gudbisay saxiix xidigan laakiin Liverpool ayaa tartan kale kulmaysa kooxaha kale Arsenal Chelsea iyo Atletico Madrid Yuri Tielemans Arsenal Liverpool iyo Newcastle xidiga Tielemans ayaa ku jira ugu dambeeyay ee heshiiska Leicester City waxaan uu diiday inuu heshiis cusub u saxiixo kooxdiisa arintaas ayaa keentay in ay kooxaha Arsenal Newcastle iyo Liverpool xiiso u muujiyaan Leicester City ayaa xidiga ku qiimeysay lacag dhan 25 milyan euro waxaana kaloo aan la sheegay in koox aan la garanaynin ay dalab ka gudbisay 19 milyan oo gaaraya dalabkaas Neymar Chelsea
weli Chelsea ayaa suuqa dhex dabaalanayso. Chelsea ayaa xiiso u qabta saxiix xidiga Neymar laakiin heshiiska ayaa ah mid adag marka la eego in xidigu doonayo inuu u sii joogo kooxda Paris. Wararka ayaa sheegay in Paris Saint-Germain saxiixa xidiga u soo bandhigtay Chelsea laakiin waxa uu eegi doonaa waxa dhaca haddii ay Chelsea xiiso lama filaan isla markaana dhameystirto saxiix xidiga. waxaa jiro kooxo badan oo hadda xidiga badan loo xiriirinayo halkan ku soo koobeen. waxaa kamid ah Idris Gaya ayaa loo xiriirinaya kooxda kubadda cagta Everton, Daniel James Tottenham, Niles Smith Niles oo Southampton ah, Jerry Bogle Leicester City, Karen Dawson oo waxa ay Wolves iyo Aston Villa Leicester isku haastaan. Samuel Chukwueze Everton ayaa rabto, Gallagher Crystal Palace ayaa rabto inay naqsato, Hakim Ziyech Ajax ayaa rabto, James Garner Everton, Billy Gilmore oo Brighton rabto, John Petro oo waxa rabto Everton. intaas waa ciyaartooyda la dhameystiri doono kistaan ka dhiman suuqa ilaa cawada Janis la siina oo in la dhameystira ay u badan tahay. marka intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeena. subscribe, like, wax kasta waa dhankiina. aad ayaan mahad celinayaa video insha Allah.